وصول صاحب يال حالدا قبل هذا السلل يا أوضل ميل حن أيه مريسا مربا مركا كتب بيسنا حالده فرها أيه كسي بحيسا odayaasha beelaha ciise ayaa go'aan culus ka soo saaray joojintii madaxweyne cabdiraxmaan ciro madaxweynaha Soomaaliland uu joojiyay xafladda xeerka ciise waxay odayaashu sheegeen in duulaan lagu yahay dhulka ciisena taariikhda aan dhul laga qabsanin una istifaaci doono ciisowna fadhiga ka kacbay waliba odayaashu ay ku dareen waa go'aan culus oo saameyn adag ku keeni kara xaaladda hadda taagan ama ku soo kordhin kara xaaladda hadda taagan gobolka awdal gaar ahaan magaalada Boorama faraha ayay ka baxday xaaladeeda iyadoo waliba ciidankii lagu amray in xeriyahooda ay ku laabtaan haddana xaaladdu ma aysan qaboojinin amarkaasi ciidamada la siiyay ee ka baxalay way ka sii daraysaa ciidamo ayaa lagu soo bandhigayaa duleedka magaalada odayaashii dhaqanka qaar baa hanjabaada soo diraya dad la garanayo baraha bulshada caanka ah baa dhalinyaradii horboodaysa xaaladdu faraha ayay ka sii baxaysaa dhinacan ciisana hadda go'aankan ka soo baxay waa mid kale oo isagana saameyntiisa wata waa dul istaagi doonaa saameynta uu keeni karo ee uu ku soo kordhin karo xiisadda hadda taagan iyo sidoo kaleeto sababta dhalinyaradu ay u degilaayihiin maadaama ciidankii laga saaray magaalada ayaan soo qaadan doonaa huburuursi laba dhinaca ayaa bilaabanaya midkay xukuumaddu aado ayaa la arki doonaa maadaama mowqifka xukuumaddu ay cadaysay oo ciro uu sheegay in la joojiyay qabashada xafladda sanad guurada xeerka ciise oo maalmo ka horna xukuumaddu ay sheegtay in 14 bisha lagu qaban doono magaalada Saylac ee xarunta gobolka Salad xogii ugu dambeeyay ayaan dul istaagi doonaa inta aan dul istaagin dhinacyo badan baan muuqaalkan ku dul istaagi doonaa bal wax yar muuqaalka odayaasha aynu wada daawano ciise waa lagu soo duulay hadalku gaaban yahay hadal daboodo doontidna ma jiro nin walo meeshaad joogtid ka soo dhaqaaq sharaftaada difaaco cididaada difaaco ciidaada difaaco egayso iisoo gurma kuma lihi waxba iisoo gurminin waxba iisoo gurminin oo yaqaana ciiso dhulkiisa oo yaqaana waxaan leenahay meesha ciise meeshay doontaba ha joogto war lagu soo duulay dhulkaaga difaaco waa meeshii isaga lagu caleema saaray maanta waxa la leeyahay xafladii xeerkaaga ha ku qabanin la leeyahay ee lagu dhafoortaabanayo maanta waa xinin ya taabad saalo taariikhda baad halku aabaya ku aasan yahay iyo halka maanta joogna arag ciise dhul lagama qaato ninkii in dhulka ka qaadanayo moodayo lagama qaato ciise dhul wayahay go'aankaasi odayaasha ayaa ku dhawaaqay bal waynu weegi doonaa soo dhawaada idinkuna aragtidina igula wadaaga qaybta commentiga aan ku bilaabe maanta madaxweynaha maamulka Soomaaliland ayaan ogsoonayn inuu ku dhawaaqay in uu joojiyay qabashada xafladda xeer ciise ee maalmo ka horna xukuumaddu ay sheegtay in 14 bishan la qaban doono wasiirkii wuxuu yiri waa la qabanayaa 14 bisha madaxweynihiina waan joojiyay buu leeyahay bal dhibaatada taagan iyo arrintan meeshay ka qurunsan tahay fiiri adu meeshay ka quruntay waa halka mar horaan idiin sheegay waa horaan idiin sheegoon inayni war xiisadan xukuumadda abuurayse ciise iyo samaroon isma necba war xiisadan madaxweynihii iyo xukuumaddiisa ka dambayse ciise iyo samaroon isma necba xilli dadkii baabi'een dhaawacun uu daadsan yahay wiilal yar oo mustaqbal lahaa maskaxda laga wada toogtay oo dhiigooda iyo waxa way maskaxdooduba ay magaalada dhexdeeda daadsan tahay hanti badan ay khasaartay bangigii dhexe la boobay stationkii la burburiyay xarumo kale oo shakhsiyaad ganacsato ay leedahay la boobo la burburiyay magaaladu dhinac walba ka qiiqayso ayuu intuu soo istaagay baa wuxuu leeyahay waxaan joojiyay xafladii xeer ciise markaan eegay buu leeyahay ciro arrintan inkaartu meeshay dadka kaga dhacday fiil ummadda Soomaaliyeed waxa baabiinayo waa hoggaan xumo ayaa meel walba nagu habsatay ilaahay oo hoggaanka noo hagaaji si kasto noqotoba odayaashii ciise waa soo jawaabeen waad maqlaysaan hadaladooda qayb yar aan ka soo qaatay muuqaalka dheeraanaya hadan soo qaatay odayaashaas waxay sheegeen in duulaan lagu yahay dhulka ciise
samaroonna waad ogsoonaydeenoo waxay dhaheen dhulkaanadaa duulaan lagu yahay oo rag baaba uga dhintay 20 kor u dhaafaya boqolaal waa dhaawac oo waxay u yaalaan isbitaalka xukuumaddiina waxay tiri waan joojinay haddaba sidee ayaa la isku qabadsiinayaan haddii la joojiyo ciise laga joojiyo samaroontoodii baa u hirgashay oo ciise dhulka inuusan lahayn ayaa caddaanaysa haddii ciise loo fasaxana samaroon wayba ku dhammaatayoo wakaa dhiiggeediiyo meydkeedaa daadsan iyo dhaawaceedii baa isbitaallada buuxa sidee wax la yeelayaa yaa ka shaqeeya arrintan horay maa uga hadlay anugu horay baan uga hadlay muuqaalo badan baan ka diyaariyey iyadoo hadalun basa ay tahay yaa waxaan idhi war ka daaya war waa la isku kiindirayaa war xukuumadda ka shaqaynaysa iska ilaaliya war samaroon iyo ciisow waxaa dhexdiina la dhigayaa dagaal daba dheeraada oo rag badan iniga dhintaan oo ku kala fogaataan oo muddo badan socda oo xalkiisa la gaari waayo ayaa dhexdiina mari doonay hadda iska ilaaliya maynay maanta ma taagantahay ciise haddii xafladiisii laga joojiyey waa godob weligii ku dhegan oo uu tirsan doono shabadna ku noqon doonta dhulkan inuusan isaga lahayn haddii samaroon sidan lagu sii wadana way baabi'i oo way ku dhammaan sidee la yeeli arrintan marka waa arrin laga shaqeeyey cirraa ka soo shaqeeyey xukuumaddiisa bulshadaas walaalaha ee wada dhashay bay madaxa isku geliyeen ugu dambaynna weli waxaa la geliyey arrin murugsan oo aan meel looga baxo iyo jaha laga aado toona aan la garanaynin baa la dhex fadhiisiiyey beelihii walaalaha ay wada deganaa labadiiba adna garli mid baa loo fasaxay midna waa laga joojiyey haddana waa laga soo boodo kubaa laga joojiyey kuna waa loo fasaxay haddanana waaba la joojiyey gebi ahaanba bal waxaas eeg waxaas marka xukuumadda ka shaqaysay dagaal baa hadda hor laa bilowday ciise huburuursi buu ku jiraa diyaargarow buu ku jiraa cid uu la dagaalamaba dibadbaxyo ka waaweyn kuwan halkan ka dhacayana arki doontid maalmaha inagu soo socda sidee haddaba la yeelayaa hadda iga dhagaysta sidee la yeelayaa sidee xaaladan lagu dejin karaa xaaladan waxaa lagu dejin karaa isima dhaqan oo soomaali oo dhan ah oo somalilan basa ahayn soomaali oo dhan ka kala yimid waa in la helo dhaqaalo badanna waa in la helo waa in odayaasha godobiirsi iyo kuwan ciise la qaado lagu wada hadlo meel ka baxsan somalilan lagu wada hadlo jigjigoo kale lagu wada hadlo halkaa gogol la dhigo odayaasha la iskugu yeedho kuwaana loo yeedho la gorfeeyo la dhegaysto war maxaad ku diideen xeerkan war idinku maxaad xeerkan ku rabtaan maxaad ku raadinaysaan maxaad ku doondoonaysaan maxay tahay dhibaatadan waxa weeye aad bahalkan aad la ordaysaan war idinku maxaad ku diideen maxaad wiilashiina ku layseen maxaad kaga hor imaadsantiin xeerkan reer baa iska lehe maxaad ugu diidan tihiin waa in kow loo kala garnoqo ciise iyo samaroon gartaa iyo gogoshaana aysan somalilan fadhinin gartaa iyo gogoshaa dhegaysta xukuumadda ciro waa inaysan hal qof ka joogin hal qof jigjigaha la dhigo gogosha jigjigo waa in la dhigaa ama dirlaba lala aadiya halkaa lala aado yaadhisaba iyo meeshii la rababa waa in halkaa gogol la dhigaa waa xalka keliya ee dhiigga bulshada walaalaha lagu kala badbaadin karo xal kale oo lagu badbaadin kara ma jiro ciise hubkiisuu qaatay samarana hubkiisuu qaatay waa iniisoo wadaa muuqaalo ayagoo waxa weye dhalinyaradu jugdhac leh oo hadlaya waan idiin soo wadaa muuqaalka xigaabaad kaga bogan doontaanba si muuqaaladu aysa inooga dheeraan xogtu waa iska waxa weeye waa talantaali afka haysaa wararku waa waqti haddaan u helno mar daqiiqad walba intaasoo xoogaa soo dhacaysa marka waxaa la rabaa dadkan haddii la doonayo ninkay cadda gudi iyo waxaan arkaya kuwo beesha dhaxo iyagu waxanba ka dambeeyeenoo sii diday meesha kalay baan arkayo dadkii shacabka la hadlayo laanaga mana sugi kartaan le ma xallin karto beesha dhexe arrintan ayaga keligood ma xallin karaan waa in isimada dhaqanka ee soomaaliyeed oo dhan la isku keeno oo waxa weeye dowladda deegaanka soomaalida la soo qaado kuwa soomaaliya la soo qaado
kuwa waxa weeye dhinacyo kala duwan laga keeno gogol la dhigo xukuumadda deegaanka soomaalida Musdafe Cagjar uu gogoshaa qaabilo isagu uu korjoogto ka ahaado arrintaas sidaa unbaa lagu xallin karaa nin maanta aan Cagjar ahayn oo xallin karo xal ka gaari kara arrintaana ma jiro xaqiiqada ay sheegaya cirra waa ninka dabka shiday Ismaaciil Cumar Geelena waa ninka afuufay Ismaaciil Cumar Geele waa ninka afuufay fuuf yiri cirrana waa shiday Xasan Sheekhna boog buu baleeyahay oo isagu tii 91 dhacday yaa wali loo haystaaba waxa laga gaarin oo isaga iyo koonfurta waa lagu dhigay yaa marka xallin kara Musdafe Cagjar weeye ninka maanta aan boog lahayn ee xal gaari kara waa inuu isma dhaqan u saaro Soomaaliya oo dhan isku keena meesha gogol u dhigo labada reer ismadooda dhaqanka u dhow soo xarooda la yiraahdo dhalinyarada la yiraahdo talaabo ma qaadi kartaan ilaa go'aan la soo saaro odayaashaas la heshiisiyo oo labada dhinac la dhiso midka garta loogu xukumo midka aan gar lahayna gar malideerinta ka baxdo waa xalka kaliya ee arrinta lagu dhameyn karo waad aragtaan Ciise hadal Samaroona hadal dhiig may baan u daasaniya dhaawac baa u yaala Samaroon oo ayuu hadalba male Ciisana hadiyo fresh iyo buruursi waxa weeye dibad bax yaa loo diyaar garoobay marka waxa la rabaa arrintaas in sida ugu dhaqsiyaha badan xal laga gaaro Samaroon iyo Ciise ma kala maarmaan waa walaalo laakiin fitna la galiyay waa la fidmeeyay hoosta laga wada afuufay balaaya lagu dhax tuuro lagu shiday marka arrintaas waa ummadda Soomaaliyeed oo dhan bay u taalaayeen xalkeeda cid doonaysa waa sida xaaladdu wali way taagan tahay boorama dhaqaaqyadu wali waa ka socdaan ciidamadii banaanka ayaa hadda loo saaray sida xogta ugu soo gaarayso laakiin banaan baaban la isku daynaynin ciidan dhowranaya